waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran channelkeena. Aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad u daawataan ama aad ula falgashaan muuqaaladan bartaan soo dhigno saaxiibayaal. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay channelkeena soo booqato subscribe inoo saar. haddii uu muuqaal ku cajab geliyana sidoo kale ha iloobin inaad like inoo saarto. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sababta ka dambeysa Akshay Kumar iyo Aamir Khan sababta ka dambeysa inaysan iskala soo muuqan shaashadda in ku dhow 30 sano ayaan idinla wadaagi doonaa. fadlan soo dhawaada saaxiibayaal. Akshay Kumar iyo Aamir Khan waa laba jilaa oo caan ka ah gudaha Hindiya marka la eego saaxiibayaal. Akshay Kumar wuxuu la soo shaqeeyay jilayaasha kale ah Salman Khan, Shah Rukh Khan, Ajay Devgan iyo waliba Saif Ali Khan. laakiin weligiis lama uusan shaqeynin jilaaga loo magacaabo Aamir Khan. haddaba maxay sababta ka dambeysay inaysan labadan jilaa aysan isla shaqeynin waan idin wadaagi doonaa. markaan eegno jilaaga lagu magacaabo Akshay Kumar asigu fanka Hindiya waxa kusoo biiray bilowgii 90-meeyada ama sanadii 1991 filimkiisa ugu horeeyay waxa lagu magacaabaa Saugandi waxa uu ka noqday filim flop ah. dhanka kale markaan eegno Aamir Khan asigu fanka Hindiya waxa kusoo biiray asiguna dhamaadkiisa 80-meeyadii ama sanadii 1988 filimkiisa ugu horeeyay waxa lagu magacaabaa saaxiibayaal filimka lagu magacaabo Qiyaama Tag ka oo ay qayb kale ah gabar lagu magacaabo Jujalwa. haddaba sababta ka dambeysa lamada inay isla shaqeyn waxa weeyaan filimka lagu magacaabo Jota Hai Wo Sikandar ka oo soo saaray uu ka yahay Aamir Khan adeerkiis Naasir Xuseen ayaa filimkaani inta aan shaqadiisa la guda galin wuxuu markii hore la saxiixday ama uu la heshiiyay ninka lagu magacaabo Akshay Kumar inuu filimkaani door ku yeesho. haddaba filimka Jota Hai Wo Sikandar doorkaasna waa doorka jilaagii Shankar Deepak Tijoori uu ku jiray ama baaskilka uu kula tartamay Aamir Khan. Akshay Kumar waa uu ku faraxsanaa in uu filimkaani qayb kala noqdo Aamir Khan muddo maalmo ayuuna sugayay adeerka Aamir Khan ee Naasir Xuseen si uu filimkaasi shaqadiisa u guda galo. laakiin halka uu ka sugayay inuu filimka Akshay Kumar jiro booskiisa waxaa lagu bedelay ninka lagu magacaabo Deepak Tijoori ama Shankar waxay Soomaalida ninka ugu yeeraan. Akshay Kumar ayaana aad ugu xumaaday falka uu ku dhaqaaqay Aamir Khan adeerkiisa ninka lagu magacaabo Naasir Xuseen ka oo booskiisa ku bedelay ama booska uu sugayay inuu jiro ku bedelay ninka lagu magacaabo Deepak Tijoori ama Shankar. Akshay Kumar ayaana 20 sano in ka badan hadda aanan la shaqeynin jilaaga lagu magacaabo Aamir Khan. Akshay Kumar hadda waxa uu soo socda filim lagu magacaabo Bajam Bandi halka Aamir Khan uu soo bixi doono filim lagu magacaabo Laal Singh Chaddha. haddaba waa sababta ka dambeysay in labadan jilaa aysan isla shaqeynin saaxiibayaal. intaas ayaan muuqaalkeena yaraha kusoo gabagabeynaynaa saaxiibayaal. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar si saaxiib badan uu u gaaro. haddii aad channelka cusub tahay sidoo kale subscribe inoo saar. waa mahadsantihiin saaxiibayaal.